ما يمغى شيخو ها شيخو سؤال بان قبا سؤال شيء waxay tay xaajada aan qabo anu ninkii shanaad baan afar nin bayga soo horeysay واقف ninkii ugu horeeyay isagoo maalin iska hurda ayay doonta midi kaga qabatay ay واقف tiri fur amba dalqadaydiisii واقف marka ninkii uu ash wuxuu yiri okay waan ku furay واقف cunugna waa u dhashay واقف markii uu xaqii ku furay gurigii waa ka cararay waa ka baxsay magaaladii واقف kii labaad ninkii labaad isagoo hurdabay doonta midi kaga qabatay واقف ifur aan baa shahaado واقف kiina waan ku furu dhahay واقف iguma filna xabada saddexdaba ifur bay ku tiri واقف saddexdii uu dhac ka siiyay واقف kii waxaas inay kaaga sheekay adig nimanka dhan ma aragtay nimankii ma la kulantay anigu ninkii shanaad baan soonay kule ma ma la kulantay kuwaas oo midada shahaadka la marsay waan ku soo wada واقف kii ugu hore cunug buu dhashay kii labaad cunug buu dhashay kii saddexaadna sidoo kale isagoo hurday doonta midi kaga qabatay واقف ay ku tiri ifur amba shahaado واقف waan ku furu dhahay واقف iguma filna saddexdaba si saddexdii buu dhac ka siiyay واقف kii afraad sidoo kale su'aashaydu waxay tahay adig midid wiil lagu saarin waan ku soo waday dhageyso واقف kii su'aashaydu waxay tahay mididan doonta laga qaban ninka ma ka furmaysa markuu kule waan furay mise kama furay waa su'aasha koobaad kow su'aasha labaad waxay tahay cunugii ugu horeeyay kii ugu horeeyay ninkii ugu horeeyay cunug buu dhashay kii labaad cunug buu dhashay kii saddexaad cunug iyo kii afraad intaasoo caruura ma ninkii ugu horeeyay haddayna ka furmayn ma ninkii ugu horeeyaa le mise male waxaan saa ku leh ninkii labaad baan soo wacay markaasuu igu dheh war xaajada igama furno cabsi baan ku furay ee cunugaa dhashay anaa lu igu dhahay su'aasheedu waxay tahay ma run buu sheegayaa ma ninkaaba iskale cunuga mise cunugaygan anaa iskale mise nin walba cunugiisu leeyahay mise maxay ahayd de kii ugu horeeya carruurtoo dhan wada leh nin walba cunugiisu iska leeyahay nin kasta cunugiisu iska leeyahay waan gartay sababtoo ah dacwada waxaan gudbisi karo ninka oo xaqa ka maqan yahay hadduu ka aamusay ilaa ninka hadda waa baxyey markii midida laga saaray ma dhihin gabadhii anaa qabo waa ku qanaciyey furiinka maxaa yeeley inkastoo furiinka mukurha uu yahay oo la qasbay laakiin waxaa qasabkaas sheega karo ninkii saaxiib xadadka ahaa marka hadday jirin cid ay sheegato oo ku qanacay inuu furiinkaas dhacay ama uu asaga ay ka ahayd islaantan midida hadduu ku saartay haddaad waa qaba aad tiraahidna berri haddana midi kale kuu taalle kii hore qirtay oo furiinka hore inta badan waxay u badan tahay inay qirteen furiinkooda hore mar haddii furiinkooda hore qirteen ee ciddadan ay ka baxday ilaa iyo cunug kale ka dhashay lagama yeelaayo inuu yidhaaho aniga igama furno waa dhamaatay insha allah adigna midida iska ilaali maydaan waaba baqayaaba hadda way igu soo socotaaba cunug bay ii dhashay waaba ka baqayaaba baarak allah ilaahay ku xafido